وفيدنimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha Oktoobar sanada 2020 kusoo dhawaada warka fiidnimo ee shabakada Sirta Media hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa diiday in uu la kulmo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre kaas oo magaaladaasi ka wada dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan hankiisa siyaasadeed ee 2020-2021 xubno ka tirsan xisbiga wadajir ayaa inoo sheegay in siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu diiday in uu ka jawaabo casuumaad kaga timid Xasan Cali Khayre oo ku aadan inay kulmaan maadaama muddadii xafiiska uu joogay Master Khayre uu xadgudub ku sameeyay sharafta iyo qiyamka siyaasiga oo ah hogaamiye mucaarad oo saameyn siyaasadeed ku leh Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Xasan Cali Khayre ka tabanaya in xukuumadii uu hogaaminayay ka dambeysay weerarkii lagu qaaday guriga xisbiga wadajir halkaasina lagu baabi'iyay naf iyo maal taasoo ilaa ay heer maxkamadeed gaartay Master Khayre oo hadda ku sugan magaalada Nairobi ayaa halkaasi ka wada dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aad u xooggan wuxuuna sanadkani u sharaxan yahay xilka madaxweynaha dalka dhanka kale wararka doorashada Soomaaliya ayaa ah waxa aad loo hadalayo iyadoo olole balaaran lagu gudagalay sida la ogaaday madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dejiyay naqshad uu ku doonayo dib u soo laabashadiisa Xasan Cabdullaahi Farmaajo oo la dhashay madaxweyne Farmaajo ayaa waxa loo xilsaaray shukaaminta xildhibaanada imaan doona liis ayaa jira oo xildhibaano imaan doona ah oo la rabo in madaxweyne Farmaajo ay codka siiyaan kuwaas oo haddaba heshiis lala sii galay warar ayaa sheegaya in Xasan Cabdullaahi Farmaajo uu lacag badan geeyay magaalada Baydhabo si ololahooda u najaxo Xasan Farmaajo ayaa maalmo ka hor gaaray magaalada Baydhabo caasimadda koonfur galbeed ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmaya cadaadis xoog leh iyadoo musharaxiin badan ay iyaguna raadinayaan in ay guuleystaan dhanka kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa toddobaadkii la soo dhaafay sheegay in uusan dhaqan gali doonin qayb ka mid ah heshiiska doorashada Soomaaliya haddii aysan dawladda Soomaaliya ciidankeeda ka soo saarin gobolka Gedo Axmed Madoobe ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan fulinin heshiiskii ay la gashay maamulka Jubbaland ee arrimaha gobolka Gedo haddii ay dhici weysana aysan dhaqan gali doonin arrimaha heshiiska doorashada Soomaaliya qaybta qosaysa ee gobolka Gedo gaar ahaan doorashada la filayo inay ka dhacdo Garbahari oo xarunta u ah gobolka Gedo dood Axmed Madoobe ayaa la sheegay in ay tahay mid aan meelna ku tiirsaneen isla markaana aysan dhaqan gali karin maadaama markii horeba heshiisku ahaa mid qarsoodi ah Axmed Madoobe ayaa muuqata in loo dhigay khiyaano siyaasadeed sababtoo ah heshiisku ma ahayn mid qoran beesha caalamkuna goobjoog kama ahayn sidoo kalena ma jirin qof goobjoog ah marka laga reebo saaxiibkiisa Dani waxaana muuqatay in aan laga ogolaan doonin diidmo waxaana soo faragelin doona beesha caalamka haddii uu isku day ayuu yiri Professor Cabdirasaaq Jimcaale oo ka mid ah falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda Soomaaliya way dhici kartaa in isku dhacyo yimaadaan markaas waa macquul xataa in wada hadallo dib loo galo laakiin hadda ima muuqato meel ay ku tiirsan tahay doodda madaxweynaha Jubbaland laakiin markasta doorashadu waa ay ka dhacaysaa gobolka Gedo ayuu hadalkiisa sii raaciyay Professor Cabdirasaaq dhinaca kale Professor Cabdirasaaq ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uusan doonin in Gedo ay ka soo baxaan ciidanka dawladda ee ku sugan sabab badan awgood waxaana jira qorshayaal kale oo ay dawladda isku dayi doonto haddii ay socon weydo rabitaankeeda madaxweynaha in uu yahay hogaamiyaha dalka waxa uu dheer in uu reer Gedo yahay maamulka Jubbalandna waxa ay shacabka gobolkaasi ka tabanayaan dhibaatooyin badan marka ma muuqato go'aan dhow oo Farmaajo ciidan uga soo saarayo gobolka Gedo ayuu markale warbaahinta u sheegay Professor Cabdirasaaq Jimcaale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa toddobaadkii hore ka digay fashil ku yimaada heshiiska doorashada Soomaaliya ilaa laga dhaqan galiyay afgaradkii laga gaaray arrimaha gobolka Gedo wali ma jirto wax war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda Soomaaliya oo hadalka Axmed Madoobe ku saabsan hase yeeshee ila wareejo ayaa u sheegay warbaahinta in qorshaha fila Soomaaliya uusan ku jirin ciidamo laga soo saaro gobolka Gedo Axmed Madoobe ayaa hadda waxa uu furan in uu diido qabashada doorashada Kismaayo oo ah 27 xildhibaan amaba in uu qabto sidoo kalena aqbalatan Gedo iyadoo ciidamada dawladda ay joogaan haddii uu diidana doorashada Gedo u joogsan mayso waxaana suurtagal ah in laga dhaqaaqo xitaa kuwa Kismaayo lagu qabto gobolka Gedo waxaana halkaani ka muuqata in laga siyaasad badiyay Axmed Madoobe ayaa hore heshiis iyo balan ula galay madaxda madasha xisbiyada qaran ee madaxweynayaashii hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud balse qabyaalad in ay qaaday ayuu Farmaajo qol mugdi ah heshiis kula galay maanta ayay haysataa asagana oo 4 ewer looga badiyay dhanka kale madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa beeniyay war qoraal ah oo uu ku soo qoray bartiisa Facebook kuna sheegay in akoonkiisa la jabsaday barqanimadii maanta ayaa bogga mas'uulkan ee Facebook lagu soo qoray qoraal uu kaga hadlayo isbaaro uu sheegay inay taala xafiiska ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble waxaana qoraalkaasi u qornaa sidatan ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu qaalisanaa ee soo maray Soomaaliya xafiiskiisa waxa ka socota howl aan hubo in uusan war u hayn oo ah in aad laaluush bixiso si lagu gudbiyo ra'iisul wasaaraha dacaayad igama ahan oo si bareera ayaa aniga la ii weydiiyay laba kamid ah kuwa borotokoolka u qaabilsan ayuu midba si gaar ah ii weydiiyay inaan bixiyo lacag dhan 300 oo dollarka Mareykanka si la igu sameeyo balan official ah ayuu yiri qoraalkan ayaa waxa uu qirayaa in Cali Cabdullaahi Cusuble la weydiiyay lacag laaluush ah oo gaaraysa 300 oo dollarka Mareykanka si loogu gudbiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble balse waa laga tiro qoraalkan bartiisa saacado kadib ayuu mas'uulka mar kale soo qoray in akoonkiisa la jabsaday isla markaana uusan shaqo ku lahayn warkii lagu soo qoray wuxuuna qoraalkiisa dambe u qornaa sidatan waxaan ummadda Soomaaliyeed ka raali gelinayaa in maanta Facebook-ayga la jabsaday
war been abuur ahna lagu soo qoray ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waan ku xiranahay cilaaqad wanaagsan ayaana naga dhaxeeya facebookgayga waan soo ceshtay sidaas la ogaado dadka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay iyagoo badankooda kula kaftamaya mas'uulka in ay dib kala xumaatay wixii uu soo tabiyay oo ka jira xafiiska ra'iisul wasaaraha cusub dhanka kale sheekh xasan daahir aweys ayaa muuqaal iska soo duub waxa ugu horeen ugu tacsiyeeyay geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galeer oo khamiistii ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali galbeed xasan daahir aweys ayaa ka taariikhiyay intuu uu ka yaqaanay Professor Cali Khaliif Galeer sidoo kale waxa uu dadka Soomaaliyeed kala dardaarmay beesha uu ka dhashay ee dhulbaantay oo uu ku tilmaamay cidda Soomaalida isku haysa inta siyaasi aan geeridiisa maqlay nin isheedu ay la ilmeysay asagan ka arkay waxa uu ahaa ninka kaliya isku dayay in Ethiopia uu meel ka saaro Soomaalida waxaana u maleynayaa markii xilka laga qaaday in uu taas eersada ayuu yiri xasan daahir aweys waxaana uu sheegay inuu ka xumaaday xilka qaadistii xilligaas ee Cali Khaliif Galeer isla markaana uu aaminsan yahay in madaxweynihii xilligaas Cabdiqaasim Salaad Xasan Culeys lagu saaray inuu xilka ka qaado waxa igu darneed oo aan hilmaamin Cali Khaliif Galeer xilligaas waxa lagu bedelay Xasan Abshir Faarax oo dalka ra'iisul wasaare looga dhigay xasan markiiba Ethiopia ayuu aaday markii uu ka soo laabtay dalka Imaaraadka oo aan jooga ayuu igu soo maray markaas ayaan weydiiyay Ethiopia maxaad kala soo kulantay markaas ayuu igu yiri warqad cad intaan u dhibnaa ayaan dhahay waxaad naga rabtaan ku qorta ra'iisul wasaarihi xilligaas Ethiopia Mali Sanabe ayaa wuxuu ugu jawaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Abshir Faarax waxa aan Soomaaliya ka rabno warqadi ma qaado weligii ma ilaawi doona hadalkaas ayuu yiri xasan daahir aweys waxa uu sheegay in beesha dhulbaantay uu ka dhashay Cali Khaliif Galeer ay tahay silsilada isku haysta dadka Soomaaliyeed oo qarka u saaran inay u kala go'aan waqooyi iyo koonfur dadka uu ka dhashay waxaan u dardaarmayaa inay samraan dadka Soomaaliyeedna qabiilkaasi waan kala dardaarmayaa meel khatar ah ay ku jiraan oo xiriirka Soomaalida ay isku celiyaan runtii iyaguna way ku dhib qabaan ayuu yiri xasan daahir aweys dhanka kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya ayaa saaka aroortii hore xiriqaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka isla markaana kuwa loo yaqaan koofiya casta ee kamid ah ilaalada madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa lagu soo daadiyay wadooyinkaasi iyaga oo hakad geliyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay dadka lugeynaya oo isugu jira arday iyo kuwa shaqo u socda ayaa cagahooda maalaya si ay u gaaraan xarumahooda meelaha xiran ayaa waxaa kamid ah isgoysyada Marwadada Maka al-Mukarrama iyo sidoo kale wadada hormarta dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ma jirin wargelin ama wax ogeysiis ah oo ay bixiyeen laamaha ammaanka dawladda waxaana taas ay keentay in saaka dadka ay ku soo waabaristaan wadooyinka oo xiran wararka qaar ayaa sheegaya in sababta loo xiray jidka ay tahay booqasho uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku tagayo cisbitaalada Yardameel Banaadir Madiina Digfeer iyo goobo kale oo ay kamid tahay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Roble ayaa maalmihii dambe wada kormeero isagoo shalay booqday xarunta taliska ciidamada booliska Soomaaliya ee magaalada Muqdisho xirnaanshaha wadooyinka ayaa wax iska caadi ah ka noqotay caasimadda waxaana mar waliba oo kormeer ay sameynayaan mas'uuliyiinta dawladda ama shirar waaweyn ay dhacayaan Muqdisho la xiraa wadooyinka muhiimka ah iyadoo ay dhibaato weyn ku qabaan shacabka intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan ina soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaa